cabdisalaan adiga iyo kulmiye marka hore iswaadin salaamaya iyo dadka Soomaaliyeedba meel kasta ay joogaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. safarka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ku aaday baartay Ethiopia iyo sidoo kale hadda wufuud baa jirta laftirkeeda oo Masar oo iyadana wasiirka arrimaha dibadda uu ka mid yahay iyagana halkaa iyagana ku wajahan intaba waxay la mid yihiin sida hadba siyaasadaha adduunka ay sihirtinayo oo mawjada badda oo kale ayaa Soomaaliya waxay saameyn weyn nagu haysaa maartay xaaladahaasi ka jira adduunka oo badweyntaasi ka xasan iyo mawjadaheeda marka hadba sidii xeelad looga gudbi karo mawjadahaasi ka xasan ee siyaasadeed ayay dawladda Soomaaliyeed ciyaaraysaa marna doomanku ma ogola jiha ee maartay ee qaar ee dabaylo ay ka soo dhacayaan in halkaasi loo jiheeyo marna way u sahlan tahay oo doonta markaan akhduhu wuxuu aad maartay isaga oo ku naaloonaya maartay ayuu jihadaasi inuu doonta u sii kaxeeyo si ay dadka saaran ugu gaarsiiyo barul amaan maartay meesha marka ujeedka u yahay bartilmaameedka ama geediga loo rarayo marka arrimahaasi ay qayb ay ka tahay oo siyaasadahaasi kala duwan oo saameyn nagu leh oo dawladda Soomaaliyeedna siday u xeeladayn lahayd oo ayadana runtii isku taxallujinayso madaxweynaha hogaamiye wagartay maadaama la isku haysto biyaha Soomaaliya oo waxa lagu heshiinayay yihiin badda Soomaaliya sooma muhiimsan cidda loo imaanayo in Soomaaliya noqoto oo Abiy Ahmed uu magaalada Muqdisho yimaado adiga aragtidaada taasi Abiy Ahmed imaatinkiisa Soomaaliya mid ugu maaha madaxweyne Xasan Sheekh markii la caleema saaray waa tuu yimid isaga iyo Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ay ka soo qayb galeen oo waliba af Soomaaliga maartay intuu yara isku dayay inuu kaga hadlo maartay qodobada qaar ee aad dadka maartay caleema saarka ay joogaan ka mid ahaa oo isaga loogu sacbiyay madaxweyne maartay Ismaaciil ba ayaga iyo maartay Uhuru oo dadkii markaa Soomaaliyeed ay kalimado oo markaa ay u jeediyeen walaal Uhuru iyo maartay markaasi madaxweynaha xilka ka degay farmaajo ayaan isa salaamin ma hada Ethiopia maartay mas'uul ka yimaada ama hogaamiye Haile Selassie ayaa maartay lixdameeyadii yimid oo dagaal inaga dhaxeeyay waxa sidoo kale yimid maartay Mille Zenawi baa yimid oo markii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo isagana markaa taa wax oo hadda oo macna weyn iyada imaatinkiisa ama la dhigi karo wuxuu yimid ma noqonaysa u yimaadane waa diblomaasiyadda labada dal ee dariska siyaasadaha marna is ogol marna isdiidan bay qayb ay ka noqonaysaa waxaad markaa Soomaalida ku cusub in wada noqon maayana ma dhigo wagartay hadda hadii Addis Ababa madaxweynuhu uu tago oo uu la kulmo ra'iisul wasaaraha waxyaabaha ugu waaweyn oo ay ka wada hadli karaan marka la saadaaliyo maxaa kamid ah waa maasanta Cabdisalaan horta saldhigga weyn ee Soomaaliya iyo Ethiopia iyaga siyaasad kasta oo ay ka hadlayaan loo baahan yahay waxa kow ah maartay nabad iyo daris wanaag in dadka Soomaaliyeed iyo dalka Ethiopia ummadaha iyagana sidaas oo u baahan labada dhinac nabad inay helaan inay nabad ku wada noolaadaan colaado raagay oo muddo soo jiitamayay aan kala go' lahayn teer iyo maartay lixdameeyadii ama wixii ka horeeyay xataa xilligii Axmed Gurey iyo maartay ragii Soomaalida eheliyada iyaga markiiba dhulka Soomaaliyeed ee isticmaalka 1884 ama 1994 markii Europa ayaga ay ku kala qaybsadeen Afrika maartay Soomaaliya qayb ahaan dhul ay leedahay ay ku wareejiyeen dhulkaas maartay Ethiopia hawd in kalena islaas oo kale iyagana Kenya ay ku dareen arrimaha sidii markaasiba ay u bilowday iyo han markaasi oo ayadana Ethiopia markaa madaxdii jirtay oo mililig iyo kulli ay ahaa xiriirkeena mid ah runtii oo aad runtii mar waliba u dhutinay laakiin marba mar kale uu soo hagaagaya markii la yiraahdo oo markii Tigray oo gacan ay siisay dawladda Soomaaliya inay ka xoroobaan nidaamkii Mengistu oo hadana markaasi asagana Mengistu oo asagana nidaamkii asagana Maxamed Siyaad Barre ee kacaankii dalka
oo asagana argoosi jabhadihii ee isagana kolkii labada dhinac carabiga la yiraahdo dagga bidagga wixii adiga marka ay qolada kale ay ka dareento ay qolada kalena maartay ay ku sameeynayso haday nabad noqoto iyo haday ay colaad noqoto Soomaaliya mar waliba waxay hankeeda ugu weyn u ahaa dagaalkii ugu weyn ee riday 77 wax badan dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed maanta samaatay runtii raad xun ku reebtay marka siyaasadaasi wali oo mar in badan ayaad ku jirta siyaasadda Soomaaliya sidoo kale waxa la soo shaqeeyay urur caalami ah oo ay ka mid yihiin kuwa Carabta marka la eego siyaasadda Soomaaliya soo lama dhihi karo si degdeg ah ay dawladda u tanaasushay maadaama muranka Itoobiya iyo Soomaaliya waa mid masiiri ah absadaha oo mar waliba taxadarkeeda iyo maartay iyaga looga maartay fadhiyo ida markaasi talada ama hogaanka iyada u hayso dal kastaba ama dadkeena Soomaaliyeed dalkiisa noqoto marka hadeertan anaga sida adiga hadda ka shaqaysay anaga waxaan u dhaxaynaa masaalix dawlado fara badan oo ayaga naga leh dal ahaan anaga aan ka leenahay dawladaha dariska waxaan masaalix leena ay ku jirtaa inaan nabad aan ku wada dhaqanno oo ayna dhexmaraan maartay xiriiro nabadeed ee labada dhinacba maartay hadii aan nabad oolin iyagana maartay sida ay labadaba ay maartay deganaansho siyaasadeed ay adkaanayso taasi marka in laga wada shaqeeyo waa muhiim midda kale waxa waaye Soomaaliya waxaan haysanaa badda ugu dheer ee Afrika haddana laba badood oo adduunka muhiim ah ayaa Ilaahay na siiyay oo geographically ahaan ama geopolitics ahaan marka loo fiiriyo oo Soomaaliya ayada Ilaahay ugu deeqay oo caalamka maraakiibta ee ganacsiga ee iyaga ee iskaga gooshaan meesha ee muhiimka ee Babul Mandab la yiraahdo annaga Soomaaliya waxaan nahay dawladaha aadka ugu dhow annaga iyo waliba ee dawlada kale ee sida Djibouti, Eritrea, Yemen, Masar, maxaa la oranayay Saudi Arabia, Oman intaas oo dhan dalalkaasi maraakiibtaasi kulli halkaasi ay marayaan isha ku wada hayaan siyaabo kala duwan hadii ay u noqdaan kuwa ayaga sidii la rabay ayaga ay ula tacaamulaan oo dalalkaasi wax weyn oo maanta wax ka bedelaya noloshooda anaga Soomaaliya maanta ilaa ay hadda kama aynan faa'iideysanin waayo berbera meesha ugu dhow oo maanta maraakiibtaas ay maraan oo aan ognahay waliba ay berbera ee Soomaaliya marka loo fiiriyo dawlad ahaan intaan soo jirnay haddana waliba aanan sidaas waxba iska bedelin adduunka satellite-yada ee dayax gacmeedyadu waa halka kaliya ay ka galaan la yiraahdaa hawada oo Ilaahay noogu manaystay meelaha adduunka maanta meelaha ay ku yartahay haddana ugu haddaan Babul Mandabkaasi annaga aan maanta aan lanahay daris ay dawladda hadda maanta Ethiopia ku haminaysa la yiraahdo oo marka qaar Ethiopia kaliya ma wadata fikirka kan dawlado kale oo ku daaban oo behind the curtain wax afka Carabiga lagu yiraahdo ama wara asatar يعني داها كداشي سيهوش قوضو وفكر كاس اللقب أي دو أي كعياريان وتاسي وأركيس مصر إن نقاله هذا وأيضا هداد دينا عمارتي سويس كانال وسامين كويالانا وهالكاسي أهل بولي هذا نولاد وبي النيل وأنا معرتي أو وحبا معرتي أنا دورينين يصير أسوق إريتريا يجيبوتي wadamadaas oo dhan waxa la yiraahdo waxa ku imaan karo dawladda gacanta la hesha ee meeshaasi fariisata inay land law ku sameyn karto ee ay ka xiri karto oo ayada ay noqonayso mid aanan yaani la'aanteeda waxba gudbi karin marka waxa la isku haysto danaha isu keenayo dalalkaasi Carbeed ee Masar iyo Soomaaliya iyo Eritrea iyo Djibouti iyo Sudan iyo Yemen horta waa dhinacaasi xagga badda ah Ethiopia waa dhinacii maanta oo ayadana Suudinta ugu dheer ee maanta aan la leenahay dal ahaan marka dawladaha dariska la yiraahdo ayaa naga wada dhaxayso xataa maanta markaad eegtid laba webi oo Juba iyo Shabeelle ayaa ayagana Ethiopia oo ka soo baxay waxa dhan horta meesha la isku wada hayo waa masaalixda ee danag guud iyo mid gaar ah la kala leeyahay dawladda marka ayaa sidaas oo kale ayagan u arkaya danahooda oo Soomaaliya hadaad ka agdhawaatid ama hadaad adiga dalalka kale adiga aad gacan la yeelatid sida
hadda maanta Turkiga oo kale Turkiga Soomaalina xiriir bay leeyihiin Ethiopia xiriir bay leeyihiin marka waa in anaga si adag aan uga fakarnaa marka ee loo baahan yahay miisaan hadaan saarayno waxyaabihii ee soo marayna waxaan ka barano waayo Soomaaliya 77kii dagaalkii Ethiopia la galnay Ruushka aan xiriir la leenahay ayaa waxaan u jarnay Ethiopia u xiriir la yeeshay dartiisa tiina waxay dhalisay in Ruushka uu u wareego dhinaca Ethiopia dawladda waaweyn anaga isugu kay tagaan kuwa bari iyo kuwa galbeedka sheeganay xataa ana u kala harin qaar dawladda Carbeed ah dhibaatadii 77 naga soo gaartay Ethiopia oo markii hore aan ku jabinay markii dambena anaga nalagu jabiyay marka gaashan buurtaasi ay isma haysteen in maanta oo kale haddaan inaan bersi anaga maskaxda ku hayno maxaa ka imaan karo haddaan anaga aan diidno waan inaan la galno oo haddana nalaga safto oo dhinacna laga maro anaga weliba shalay meeshaan taagnayn ciidan ahaan iyo awood ahaan iyo dal ahaan iyo dad ahaanba oo ay dhibaatooyin fara badan ay naga haystaan dawladeena Soomaaliyeed marka aad fiirisid inta aan soo xusay ee aanan ka marnayn siyaasad iyo dhaqaale amni iyo bulsho intaba saaxiib aabba kula hadlaya wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayle haba u labayn Soomaali Suudaneys anida kugu daray waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay 5 sano oo isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya Somali Suudaneys Hospital SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega